السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته سوتو هذا أصحابته مقال كان ما أنت أقول قليل وحارة بين أمها تعليو لمان مقالة ضد الله جريو وصيدو كل شيء جريو أصحابته كان لو داقو هذه أما سنتين ما أنت مقال كان وحول هذا جوجل سيرشينج تصالحان جوجل كأي وحيابك كراديسا أم ها هذا صبيرو أم مقالو أم وحيابك كردوكمنتيه أما 10 لقاء صديرو كلا جامعة أم سكول كمتكو دونها نقد أم برنامج هذا كرادي نيسيد waxaa ku hayaa maanta 5 tip oo tricks ah oo qaab fudud aad ku raadi kartid qaybta Google searching-ka ah shantaas waxyaabood ayaa waaga hadla muuqaalkan insha Allah midka ugu horeeya waxaa loo yaqaanaa tabis-kaani wuxuu ka saacidaa tusaalahaan waxaa gashaa Google-ka markaa waxyaabo searching aad raadisid waxaa ku soo baxo tabs oo kala duwan midka ugu horeeya waxaa loo yaqaanaa all oo tabkaas ah dhammaan waxyaabahaas wuxuu ka soo qaadaa ama sawir ama qoraal ama wuxuu rabo ahaado ama PDF waxyaabaha uu isku soo daraa waxaa kaloo ku aragtaa tab oo image oo kale waxaa kaloo ku aragtaa video oo kale sidoo kale waxaa ku aragtaa tab oo kale news oo kale iyo moogaasoo finance xataa ka helaysid marka tabis kuwaas ayaa loo yaqaanaa tabiskaas waxay ka saacidayaan waxaanay u baahan tahay sawir oo kale uga baahan tahay qaybta imageska ayaa dooranay sawiro quseeyo waxaas u baahan tahay ayaa ka helay sidoo kale hadii aad u baahan tahay videos oo kale oo muuqaalo uga baahan tahay si aad u fahamtid barnaamijkaas oo kale tabka videoga ayaa taabanay marka tabiskaas waxay ka saacidayaan mid kasta wuxuu u qabanayo ama sawir hada uga baahan tahay ama video hada ugu baahan tahay oo kale ama tusaalahan ugu baahan tahay news ko kale waxyaabahaas wax soo kordho kale cusub waxyaabahaas ayaa ka heli kartaa midka xiga waxaa loo yaqaanaa quotation-kan wuxuu ka saacidaa Google-ka hadii tusaalahan qoraal qortay qoraalka qortay wax badan ayuu ka raadinaa marka wax badan maadaama uu raadi lahay waxa adeegsanaya calaamadda quotation-ka oo quotas-ka calaamadaas wuxuu ka saacidaa Google-ka qaybta searching-ka wax raadinta ayuu u fududeynaa quotation-kaasi furtay sidoo kale qaybta kale quotation ayaa ku soo xiray intaas gudaha ku jirta kaliya bas ayuu raadinaa marka wuxuu ka saacidaa wax badan oo raadi lahay qaybta searching Google-ka ayaa u soo yaraanayso tusaalahan waxa u baahan tahay teknolojiyada oo kale wax news marka waxa ku qorto qoraal waxa qortay news calaamad waxa adeegsanay double quotation-ka kadib technology ayaa ku qoray kadib quotation-ka waa soo xiray wuxuu raadinaa marka specific way kaliya bas wuxuu raadinaa waxyaabaha teknolojiyada oo qusay kaliya bas ayuu raadinaa marka calaamadaas waxay ka saaciday qaybta Google-ka inay u fududaato waxyaabo badan oo raadi lahay Google searching-ka midka saddexaad waxaa loo yaqaanaa Haven calaamadda Haven-ka anaga waxa u naqaan calaamadda Mainst oo kale calaamadaasi marka Google searching-ka adeegsanaysid waxa uu adeegsan kartaa in wax loo yaqaan eliminate ina iska saartid qaybtaas oo kale uusan ku raadinin qaybtan waxay ka saaciday in waxa u baahan tahay oo kale tusaalahan hada qoraal waxa soo qaadan oo kale mouse ko kale mouse marka qaybta Google-ka ku raadiyo wuxuu ii soo saaraa mouse for animal-ka iyo sidoo kale midka xayawaanka iyo midkan kale oo mouse-ka oo electronic qaybta labadaba ii soo saaraa aniga markuu u baahani midkaani oo animal-ka oo xayawaanka ama jiir u naqaano ama dooli u naqaano midkaas uma baahani waxa rabaa kaliya bas marka inuu soo saaro qaybta mouse-ka oo electronic marka waxa adeegsanay mouse ayaa dhahay calaamadda Haven-ka ama Mainst oo kale ayaa qoray kadib waxa dhahay animal marka muku soo daraayo wax xayawaan muku soo daraayo kaliya bas wuxuu ku raadinaa qaybta electronics-ka marka Haven-kan intaas ayaa ciidan ka saaciday midka afraad waxaa loo yaqaanaa column-ta oo calaamadda labada dhibcood ayadana waxay ka saaciday search oo link certain link ama website tusaalahan waxa u baahanahay website gooni ina xog ka raadiyo ayaa rabaa xogti ayaa soo qoray qoraalkii markaa soo qortid waxa u baahan tahay website-kaas oo kale ina ka raadsatid ama New York oo kale ama website-da BBC Soomaali oo kale ama website-da caadiga oo Soomaalida oo kale ayaa rabtaa xog ina ka raadisid website-kaas aan agsii raadisid Google-ka markaa gashid waxa soo bixinay marka qoraalka ayaa qoray xogta u baahan tahay qoraalkii markaa qortid kadib calaamadda column-ka laba dhibcood ayaa dhahay kadib website-ka ayaa sheegay www.bbcsomali.com ayaa dhahay calaamadda marka column-kaas waxay ka saaciday kaliya bas xogtan inuu kaaga raadiyo website-kaas qaaska ee BBC-da marka website-ka kale iyo waxyaabo kale ma kaaga raadinayo
qaybtaasna sidaas ayay kuu saacideysaa. midka ugu dambeeya shanaad waxaa loo yaqaanaa asterisk, waana kan badanaa la adeegsado. Asteriktan wuxuu kaa saacida wax aa hilmaamsantahoo kale asigaa kuu raadinaya google-ka. sidoo kugu raadinaa tusaale ahaan qoraal ayaa qortay laakiin qoraalkii si fiican ma xasuusatid, waxaa suubinay qaybta aadan xasuusanin ayaa calaamada asterikta gelinay, asiga ayaa kuu raadinaya badanaa. laakiinse google-ka markaa baartid waxaa dadka badan ay ku raadiyaan muusigoo kale ayay ku raadiyaan, heesta ay garanayn oo kale ayay meesha geliyaan. marka dhowtu u raadinaa qofku wuu helaa calaamadaas asterikta oo geliya. laakiinse adiga waxyaabo kale oo ka duwan ayaa ku raadsan kartaa. marka qaybtaasna waxaa loo yaqaanaa waxa aa hilmaamsantahoo kale inaad ku raadi kartid calaamada oo asterikte, anaga xidigoo kale aan u naqaana, calaamadaas ayaa u adeegsan kartaa. muuqaalkani haddii aad ka hesheen waa soo badina insha allah tips iyo tricks-ka google-ka. hadda 5 xabo ayaa kasoo suubiyey, part 2 kale haddii ay dhahdeen noo soo suubi, asigana insha allah waa soo suubinaa. aad iyo aad aa umahadsantihiin daawashada muuqaalkan aad daawateen.